qof walba oo naga mid ah waxa uu leeyahay baahiyo iyo duruufo aad u badan. baahiyahaas iyo duruufahan haysta cidda kaliya oo og oo wax nagala qaban karta waa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. waxa inta dheer in Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu yahay deeqsiga ugu deeqsisan. sida awgeed adiga oo naftaada ku rabeeya in baahidaada iyo duruuftaada aadan meel kale la aadin, waxa ay kuu fududeynaysaa in niyadaadu ay mar walba ku xirnaato Ilaahay subxaanahu wa ta'ala. wax walba oo qofku naawilayo oo jecel yahay inuu helo adduun iyo aakhiraba, haddii uu maskaxdiisa si joogto ah aanan lahayn maaragtay yabaal oo qofku markuu u cibaadaysan Ilaahay baryayo oo Ilaahay wax ka rajaynayo, niyad waxa way samirtaagwa ah oo yabaal ku jiro oo qofku uu leeyahay Ilaahay iska baraya oo uusan si dhab ah oo niyadiisu kalsooni 100% ah Ilaahay isa ku qabin haddii u baryo ama uu wax uga rajayo. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala xadiiskii wuxuu ahaa anigu waxaan ahay adoonkayga wuxuu iga fisho. haddii aad Ilaahay saligsantahay inuu wax ku siinayo ama aslaad wax kama heli doonti, Ilaahay inuu wax ku qadiyay ma ahane niyad xumadaada ku qadisay. sidaa daraadeed waxaan walaalayaal isku dardaarmaynaa in niyadeena aysan marnaba aysan Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dhaafin oo Ilaahay ay ku kaaftoonto. Ilaahay subxaanahu wa ta'ala wuxuu yiri alaysa Allahu bikaafin abda. sida awgeed waxaa loo baahan yahay si kastoo xaaladu adag tahay oo meeniska iyo wax lagu helo ay u qaabdaan maaragtay u culus yihiin, in aynaan marnaba nafteena iyo niyadeena u ogolaan in Ilaahay cid aanan ahayn aan niyadeena u furno oo wax ka rajayno. intaas ayaan kusoo koobinaa. وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.